ويهود بقى فلسطين بدت والله فلسطين ويكحمايسين ولا دغالمايين inaan ka yar ee lagu dilay maxay Berlin ee gaarigu yaryadina waan taagnaa goob joog ayaan xabadu waxay iga dhacday xagga caloosha dhabarkayga soo gashay saasoo sii jeeday gaadhimayskayga qabaalka iyo maana wadan baaskoolada maana wadan qoryaamaana wadan wax alaala waxaan wadanay ma jirin xataa markuu cabaysanay qoriga waan arkay in yaro saddex talaabo iga tagtay sanadkii dhamaaday ee 2022 Soomaaliland waxa uu ku suntanaa muran siyaasi ah oo loo maara waayay heshiis laga go'sooday iyo ismaquunin dhinacyada ishaya oo dhammi ay ku tashadeen intooda oo kaliya ay noqoto natiijaduna waxa ay noqotay 11 August iyo Soomaaliland oo durduray dhiigga shacabkeedu kadib wada hadallo badan oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan 13 May ayaa musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro taageerayaashiisa ugu baaqay inay heegan u galaan badbaadada qaranka iyo dastuurka Soomaaliland Saudi Arabia qaranka badbaadisaan Saudi Arabia dastuurka badbaadisaan Saudi Arabia doorashooyinka ku soo celisaan nidaamkiisa dalka Saudi Arabia xaalad ka soo idin ka hor timaada وإنه ساعدنا نسيرك فوفي دونو ديار بوهانسا هيجن بوهانسا هيجن سو هيجن مديني 3 bilood kadib 11 August ayaa taageerayaasha isku soo baxeen guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland Siiriyo ay sare u afuufayaan ayay ku hubaysnaayeen waxaana ay ku dhawaaqayeen inay doorashadoon yihiin diidan yihiin kaliya talisnimo wuxuu ahaa dabadbixii ugu weynaa ee Soomaaliland ka dhacay kii ugu khasaaraha badnaa abid sidoo kale xamaasadda dhiiranaanta farabadnaanta ka qaybgalayaasha ayaa subaxii horeba muuqatay waxaa la arkayay in mudaharaadkani uu noqon doono kii ugu weynaa ee Soomaaliland ka dhacay intii ay jirtay subaxii hore ee maalintaasi tilmaaman 100 qof ayaa isugu yimi maqaaxida Jiicaboorka wadatashi kooban kadib mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa taageerayaashooda ku wargeliyay inay isugu tagayaan xafiiska xisbiga wadani ee ku yaala xaafadda New Hargeysa xaruntii wadani baan tagaynaa xaruntii wadani markii uu shalay kalaha wasiirka daaqili waxa uu lahaa halkaas aan u qoondayna waa ku lahaa waxaynu marinaa sayladaynu marinaa qoodaha iyo rabitaanka bulshada ma kooxin karaan ilmida saadana dadka cunaan ay ku daaya xagga dadka rabitaanka shacbiga la isma warkaagi karo hadda ma kooxin karto haara ma kooxin karo hadalka mas'uuliyiinta kadib halkaasi ayay ka ambabixeen jamaahiirtii dabadbaxayaashu iyagoo ay horkacayaan mas'uuliyiinta xisbiyada ucdiya wadani dugsiga Maxamuud Axmed Cali ayaa la sii horlugeeyay iyadoo loo sii jeedo dhanka iyo sayladda oo looga sii gudbayo New Hargeysa tirada dadka ayaa marba marka ka dambeysay soo tareysay dhawaaqa siidhiguna cirka ayuu isku sii shareeray ugu dambeyntii waxa dadkii qulqulayay ay soo gaadheen iska wararcad oo looga leexday xarunta dhexe ee xisbiga wadani dabadbixii ayaa markiiba waji kala yeeshay jawigii dabaaldega iyo dhoolatuska ayaa soo afbeermay waxaana bilaabmay iska horimaadyo adag oo joojiyay isku socodka gaadiidka ciidamada booliska oo la soo dhoobay wadada ayaa dabadbaxayaashii toos isku wajaheen wax yar kadibna dhawaaqa rasaasta ayaa yeedhay cirkana waxaa qarasay uurada sunta dadka kaga ilmaysiisa cid ka badbaadaysay in toos loo beegsadana ma ay jirin musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo khudbad u jeedinaya taageerayaasha ayaa sunti gaadhay haday doorashadii madaxtooyada dhici weydo way nagu sugannahay kursiga tab xeelad maaro iyo taagba taladii jamaahiirtu waxay noqotay in si kasta ay ku gaadhayaan ba ay tagaan xaruntii xisbigooda
si kastaba ha noqotay khasaarihii ugu horreeyay ee dabadbaxayaasha soo gaadhay ayaa dhacay subaxii horeba waxaan dhaawacmay 17 la ibraahimow sidaa iminkaan ku hor fadhiya ibraahimow aniga u fadhiya way salaad hore tahay way dareemi kartaa 17 la ayuu halkaa askari ciidanka qaranka ku labisan dareeskii laamid orodka ka soo talaabay waan arkay markuu soo ordayay laakiin ma moodin inuu aniga ku soo ordayo xataa markuu cabaysan qoriga waan arkay in yaro 3 talaabo iga toogtay marka xabad buu dhulka ku dhuftay ibraahimow walaal xabad baa igu firdhay waa fiinadan la iga qalay tii taas markay ugu dhacdeen dhiigii arkay ayuu tan kala si bareer khasaarihii ugu badnaasay dabadbaxayaasha waxa uu ka soo gaadhay iskooyska warar cadde ee looga leexdo xarunta xisbiga waddani halkan oo ciidanku ay ka hor istaageen mucaaradka ayaa isku dhacyadii ugu adkaa ay ka dhaceen rasaas nool xabadda dheemishka ah iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa ayaa dabadbaxayaashu wajaheen awoodda xaddaafka ee boolisku kala hor yimi iyo dhibta gaadhiba waxay fajac ku noqotay dabadbaxayaashii hooyo xaliimo waxay subaxaasi gurigeeda uga soo baxday inay soo qabsatay ina yar oo ka soo baxsatay 5 cisho kadib mudaharaadkii weli dhakhtarkan ayay ku jirtay dhibtu waxay ku soo gaadhay ilmihii oo iga horeeya ayaaba ilmo kalena inaan dhacay ayaabaan ku soo baxnay oo la jiidanayo marka askartu intuu dhacay ku tuntumanayso la jiidayo marka ilmahaas kadib ilmkahaas baa u baydhay markaana baydhana ilmihii dadkii waa na soo jiiday inankii waa na soo jiiday waa soo kaxaynay inantii yareedna waan cararay waa soo qabsaday kadib saasoo nabarka igu dhacay wuu igu reebay qori dabada askarta taxbadna la dhacaan oo weji kale u yeesho ayay wax noqotay saa awgeed buu dhaawac nagu soo gaadhay aniga halka xiniyaha agtiisa iga dhacday xagga si jeedkan iga baxday ciidan markaa la soo dhigay waan u sheegnay waxaan ku anagu mudaharaad salmiye baan wadnaa sida aad aragtaan wax allaala wax aanu sidaynina ma jirto kabana bax salmiye baan wadnaa wadada noo banneey wayna diidina rasaas nool bay nala dhaceen markaa saa awgeed aniga waxay iga soo gaadheen markaa lugta bidix ee xabad nool iga dhacday anigu waxaan taagnaa xaafadda New Hargeysa gaar ahaan tiirta ana war cadde xabaddu waxay iga dhacday xagga caloosha dhabarkayga soo gashay saas oo sii jeeday gaadhimeyskayga qabaalka kadib xabaddu xagga dhabarkayga gashay xaggaas iga soo baxday dhaawaca kasako iyaguna waxaa mudaharaadkaasi ku dhintay 5 qof 3 ka mid ah waxaa lagu dilay magaalada Hargeysa deeqa xasan jaamac waxay goobjoog u ahayd dhimashada 2 ka mid ah dadkaasi waxaan anigu marag iyo marqaati ka ahaa markay saa noogu soo galeen iyo ka hoostaba aan wali soo galin xabadana lagu bilaabay xarunta afkeeda xabadana laga bilaabay xaadir baan habeenka ma sheegayo dawladda sharafta leh iyo ciidankaba barta ayana laga bilaabay xabada inankii ugu horeeyay ee xarunta la soo dhigay goobjoog baan haa markii dambe ka bacdigii dhamaan ugu mudaharaadka marnaba kama tagin waan joogay ilaa mudaharaadku dhamaanayay inanka yar ee dambe markii lagu dilay waxa lagu dilay maxay ahayd baarliin ee gaadhigu yaryadina waan taagnaa goobjoog ayaan ahaa isbitaalka amal garaan oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay mudaharaadka iyo kuwii ku dhintayba ayaa isagana ciidanku ay ku rideen sunta dadka kaga ilmaysiisa taasi oo khasaare kala dhalisay sida ay sheegeen maamulka isbitaalku iyagoo ka falcelinaya ayayna soo galeen qorada biliiska waana lagu rideen oo bahashan ilmo ka ilmaysiisa albaabkoona loogu dhuftay dad yaacay oo wal kala yaacay oo isbitaalka waa la isjiiray oo deegaanka qas noogu filan waana gaadhay oo xoog bana lagu jiiro waa gudaha la soo wada galay qabashada iyo xariga ayaa u dhinac socday dilka iyo dhaawaca ay la kulmeen taageerayaasha mucaaradku 100 qof oo isku jira rag iyo dumar ayaa ciidamada ammaanku ku qabteen mudaharaadkaasi dadkaas ayaa badankoodu sheegay in jirdil loo geystay markii la xidhxidhayay ayna jeelasha ku soo arkeen dhacdooyin xanuun iyo argagax badan waxa ka mid ahaa sababaha markaa in jirdil lagu sameeyo markii la qabanayo ciidanku gacanta ay qaado oo qori dabadii la dhaco adka iyo 3 nin oo aan garanayaba oo niman ciidanka kamid ah aan hadda magacyadooda sheegin laakiin aan garanayo oo iminka ma aan calaamadoodii iyo magacyadoodii garanayo oo waliba reer ka soo jeeda oo isku reer bay isku qoysiin qof walba waxa la weydiinayay qoyskiisa qoladu yahay qabiilkiisu yahay aniga waa la weydiiyay taybaa la yiro caynkaas oo nin garxaj soo deeyo iyad ka sii tahay ilaa iyo qoyska Muuse Ismaaciil baa la sii gaaray ma filayn askarta dambigaaga baariyay ee ka dhibanaha ayaa marna qolo ku weydiinaya ama kooranaya xisbigay baa taageertayo xisbiga maxad ku taageertayo ma qoladaada marna ma filayn qofkii hadlay yiraahdo ma ka bayga soo qaato ama wax soo qaato handadaad iyo cay iyo jirdil baa loo geysanayay qofka waxa la moodayo qof
sidii waxa loo dilay qofkaas qof burcado kala ayaa loo dilay oo Ibrahim dadkaas waxa dhalinyartii laga soo qabtay magaalada mudaharaad sidoo kale dhacdooyinkii mahadhada reebay ee laga diiwaangeliyay mudaharaadadaasi ayaa waxa ka mid ahaa in markii ugu horeysay taariikhda xabsiga loo taxaabay 22 hablood isla markaana loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala magaalo kale Samda iyo sidoo kale Muxtaada ayaa ka mid ahaa hablahaasi waxaana ay ka warameen dhacdooyinkii ay la kulmeen intii ay ku jireen xabsiga waxay ugu darnayeen intii aniga intii leela xidha waxay ahayn mula haddayna mulahaydna ilmihii yaraa way ka timi adeeg bisay mudaharaadkii waxa ku jira adeeg yarbi suuqa ka soo adeegatay baabuur muusocdo lugeynayay isla kusku mar baan ayaa nabad qabtay dar cadaanigii qabatay dhacdeedan baayadana qabatay waxa dhacday saldhigii markan la geeyay intu waa umul waxa weeyay ilmihii yaraa mar waa loo keen waayay caanihii baa gubay gabadhii baa ka caafariisatay waxaanu kaga lisnaabaan macal weyn caanihii oo baalkii ciidankii markan dalbanay aanu dalbaabku nagu xiray telefoon ma haysanay dadkii gabadhan dadku ogaan baanaga dadkayga la baro noo garaaca gabadhan dawaa taas oo dhibaataysan tahay ay iskaga listaanahay ka bacdina adigu ciidankii moobil ma haysta iyo dabku ku jiray waxa noocaas bay nagu yiraahdeen adigu halkii baan ku deyn waxa jirta markii dambe adigu waan u fikirnay caagadahan nagu keenay biyaha ayaan soo qaadnay caagadahan waliba caagada leerahay ila ka badan intii baan ku eegnay caanihi markii Ilaahay waaba kala seeba saldhiga markii la geeyo horta anagu habla ahaan waxaan haystay 16 hablood 16 kayga hablood waxa jirtay hablo ku xanuustay saldhiga dhexdiisa oo xaalada caafimaad la soo darseen waxa kamid ahayd hablaha inaan Samda la yiraahdo inaan kala hibaaq la yiraahdo marka inaan Samda 12 saacadood oo ilaa 17 saac meelaha ay kooma ku jirtay anaan wax gargaaran helin koombadii Ilaahay baa ka soo saaray way iska ladnaatay waxa jirtay inaan kala hibaaq la yiraahdo iyaduna hablaha kamid ahayd oo iyaduna inta irbadii oofta doonatay irbadii lagu soo miday irrij ku kicisay oo gidi wada barartay ka bacdin markay barataan sniriide ama mas'uuliyiintii naga mas'uulka hay noo garaaca waalidka ama cid kale ama inanta dhakhtarnooga iyadana loo diiday way jirtay duurkii markii la gaaray ayaa haddaba ay soo afmeermeen iska horimaadyadii gooskooska ahaa xiriirkii internetka ayaa shirkadihii isgaarsiintu soo celiyeen daaha ayaa laga qaaday gegadii dhacdooyinkii subaxaas waxaana soo ifaxay baaxadda dhibta dhacday dhiigga ayaa lagu maydhay wadooyinka Soomaaliland si kasta ha noqoto waxa wali halkiisii taagan murankii siyaasiga ah ee dhaliyay mudaharaadkii 11 August iska dhaaf inuu furdaamiye su'aalihii taagnaa ayuu 10 kale ku soo kordhiyay malaha waxa ugu mudan su'aasha hooyada dhiban ee isweydiinaysa sababta loogu celiyay cashuurtii iyada laga qaaday kunka maalintan way soo amaahay gidaha waxana uu bixinaya markay dhahan soo amaaho waxa loo bixinaya dabacad bay ku taagan yihiin dawa askartaadii dawa hooyadood anigoo ku bixinayo ilmahaygu madrasad la'yahay oo askuul la'yahay oo dawladdu inay dadka caawiso xaq u leedahay haddana hooyadii bacadka kunka lagaga guray qori dawadii hala la dhaco xaq ma noqonayso balse waxaan leeyahay waxaan wax loo adkaysanayana maaha wax loo ordayana maaha xaqa islaamku in hoos loo eega fiican waynamadayadii bay ku qaataan tukarraq bay ku qaataan ergaa bay ku qaataan saylac bay ku qaataan lacagtayada waan hooyada halka qadradda yaxabtays marka haddii hooyadii bacad kala jiirjiidho oo la jiijiido xaq maaha